jasiiradaha Maldives ayaa laga yaabaa inuu noqdo wadankii ugu horreeyay ee la waayay isbeddelka cimilada awgeed dhamaadka qarnigan, iyadoo 1129 jasiiradood oo yaryar ay halis ugu jiraan inay ku qarqoomaan badda hoosteeda. Sidaas darteed, mas'uuliyiinta wadanku waxay sii laba jibaarayaan dadaalada ay ku fulinayaan mashaariic waaweyn oo lagaga hortagayo kor u kaca heerarka biyaha. Majalada Le Point ee ka soo baxda Faransiiska ayaa soo koobtay arrimaha ka taagan Maldives, taasoo ay hay'adda cilmi baadhista juquraafiga ee Mareykanku rajaynayso in 80% dhulkeeda aan la degi karin sanadka 2050, waxaana madaxweynaheeda Ibrahim Mohamed Solih uu sheegay intii lagu jiray shir madaxeedkii cimilada ee sanadkii hore in jasiiradihiisu ay mid u muquuri doonaan biyaha. Waxaa jira hindise la tilmaamay in lagu badbaadinayo jasiiradahan oo uu ku jiro mashruuc ballaaran oo ay soo bandhigtay shirkad Hollandiisa oo lagu magacaabo Docklands, kaasoo la bilaabi doono bishan Maarch aynu ku jirno, sida uu sheegay agaasimaheeda Paul van de Kam. Waxa uu sheegay in mashruucani waxtar u leeyahay jasiiradaha iyo dunidaba. Mashruucan awadeed waxa ay jasiiradahani isu rogi doonaan magaalo sabaynaysa, taasoo noqonaysa nooceedii ugu horreeyay dunida, kuna kacaysa qiimo lacageed oo dhan $1 bilyan. Mashruucani waxa uu xal ka noqonayaa xalalka deegaan ee kor u kaca heerarka badda, sida uu agaasimuhu xusay. Shirkaddu waxay soo bandhigtay sida uu noqonayo mashruucani, taasoo u muuqanaysa magaalo ka kooban 13,000 oo guri oo sabaynaya biyaha dushooda, oo leh wadooyin, luuqyo lagu qurxiyay geedaha qumbaha oo ay ku hareeraysan yihiin jasiirado yaryar oo macmal ah. Si kastaba ha ahaatee, xogaha dhabta ee mashruucan, tiknoolajiyadda loo adeegsaday iyo daraasadaha laga sameeyay deegaanka badda ee gobolka ayaa ah mid qarsoodi ah, sida uu sheegay maamulaha shirkaddu.